السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل توعنا ونكسرنا ما صاحبة قيمة بدنا يكون حنا جنا كسبنا كستو اوفيشال فضلنا دي تايمر كورس أسباب قط جنا كسبسكرايب نوصل كمبل الكنافرو سيمر كستاكو سو كاران مقالة الحساب بدنا كان صورنا فضلنا دي هنا لو جوكتنا مقالة كلا نوصل سو كنا شير كره سو مقال ku gaara saaxiib badan waana ku maasan tahay barnaamijkeena maanta waxa ku soo qaadanayna filimka Jawan oo markaa hogaamiyay Shahrukh Khan sidoo kale xiddigta lagu magacaabo Niyantara markaa Superstar laga dambeeyay ninkaasi Tamiladoon filimka tirsho ku adkatay sidoo kale Vijay Subatoona filimka ku matay laada awood badan halka Atle Kumar filimka ku yahay director sidoo kale filimka hadii aad soo fiiriso wuxuu markaa yahay filim markaa laga ninkaasi Tamiladoon balse filimkan wuxuu noqon doonaa pan India movie sidoo kale wuxuu noqon doonaa filimka ugu horeeyay markaa Hindi iska leeyahay markaa soo koonfur Hindiya laga daawado maadaama Atle markaa laga jecel yahay marka la fiiriyo koonfur Hindiya filimada classic oo sameeya kamid Theory Mersal iyo sidoo kale Bigil oo markaa uu sameeyay Thalapathy Vijay wuxuuna kamid yahay directorada aadka loogu jecel marka la fiiriyo fanka markaa Tamil inta badan wax saaxiibay actor kala wajacay Thalapathy Vijay haddana wuxuu ku dhawaaqay mashruuc xisaab badan inuu sameyn doono SRK ama Shahrukh Khan directorkana waxa markaa sheegay markaa ina tahriye markaa urumado inuu markaa u sameeyo superstar ku weyn marka la fiiriyo fanka Hindiya ee markaa Shahrukh Khan filimka Jawan wuxuu shaac laga qaaday isla markaa maxaa sanadkan 2003 filimka la daawan doono haddana filimka shaqada intiisa ugu badan filimkan waa la qabtay oo markaa filimkan xawaayan markaa shaqo dhiman sidoo kale filimkan bilaha lagu soo foodna filimka wax la sameyn doona editing ama waxa lagu sameyn doona VFX aalada markaa VFX loo yaqaan filimka lagu tayin doona si markaa mashruuc uu noqdo mashruuc markaa heer sare hadii markaa la isku fiiriyo filimka Bataan markaa shilata ka jalway la saaray sidoo kale filimka Jawan waxa markaa labada aad u sareeyay filimka lagu magacaabo Bataan markaa si qaab heer sare markaa loo sameeyay halka filimka Jawan markaa lagu sameeyay meel markaa ku kooban markaa India oo markaa filimka Jawan markaa noqon doona filim markaa action dhameystiran leh sidoo kale madaalna filimkan leeyahay sidoo kale xidigaha kala duwan ee markaa ka soo muuqan doona Vijay marka laga soo tago Vijay Subatoona sidoo kale Niyantara iyo sidoo kale xataa waxa la sheegay Dabika Padukone filimkan ku leeyahay muuqaal martiya oo markaa filimkan xasuus hore markaa ku soo galayso Dabika Padukone aan raahday Shahrukh Khan xaaskiisa hore taasoo ka dhigayta filimka in markaa la isku keenay rag awood badan filimkan xidiga Shahrukh Khan markaa ku soo laaban doona filim kale oo xiiso badan oo markaa sanadkan 2023 xidigan wuxuu noqon karaa sanad kale oo markaa u khaasa maadaama filimka Bataan hadda noqday all time blockbuster oo markaa hadda wali markaa tiyaatar saaran yahay asxaabta diyaamada inta ka soo gudbin big news ku markaa ugu weyn waxa kamid ah filimkan in markaa shabakadaha kala duwan ama markaa warbaahinada kala duwan maanta daabacayaan in filimkan Allu Arjun lagu soo dari doono markaa muuqaal koomiya markaa kooban filimkan ku yeelan doono taasoo ka dhigta filimka in noqdo bigger markaa oo xiiso badan soo bixi doona sanadkan oo markaa la isku keenay superstarada markaa ugu weyn fanka marka la fiiriyo koonfur Hindiya hadii noqon lahayd dhan walba Thalapathy uu markaa ugu awood badan marka la fiiriyo fanka Tamiladoon marka laga soo talo Rajinikanth sidoo kale superstarka marka laga dambeeyay dhankaasi fanka marka talagu Allu Arjun ama Styles ajan marka loo magacaabo Allu Arjun sidoo kale xiddigta caanka Niyantara ku jira Vijay Subatoona marka waqtigiisa fiican ugu jira maadaama filimka Fikram uu kaas u noqday all time blockbuster ganacsahan uu gaar 400 koran marka superstarada way filimkan la isku keenay taas wax ka dhiganta filimkan in filimkan hadayntiisa markaa erka sii gashay taasna waxa ka dhigtay markaa superstarada awood badan filimkan la isku keenay oo tahana filimkan SRK wuxuu ku qabsan doona marka la fiiriyo dhulweynaha Hindiya sidoo kale koonfur Hindiya taasoo ka dhigantay filimkan ganacsahan inuu soo xareyn karo ilaa 500 kor ilaa 700 kor taasoo ka dhigantay filimkan inuu yahay filim big weyn balse filimka hadii markaa sheekaysa wanaagsan to maadaama filimka actorka markaa Shahrukh Khan oo markaa saameyn badan ku leeyahay dhankaasi markaa suuqyada caalamka ama overseas-ka waxay ka caawin kartaa filimkan inuu markaa suuqyada caalamka ka sameeyo wax waaliya sidoo kale SRK wuxuu sheegay dhawaanahan in markaa sameyn doona filim markaa action oo markaa ugu horeeyay Bataan Jawan sidoo kale filim kale oo wali markaa shaac laga qaaday halka filimka dhankii uu markaa u noqon doona filim markaa jacayl oo markaa fariimaha safarada nolosha markaa dadka tahriibayaasha filimka ka hadlayo taas ayaa markaa filimkan oo kaliya ayaa filimka xidiga jacayl noqon doona sidoo kale sanadka 2004 wuxuu qorsheyn doona filim kale oo action inuu markaa xidigan ula imaan doono balse hadda waxa uu soo horeeyay labadiisa filim markaa Jawan sidoo kale dhankii halka Jawan shaac laga qaaday labada June filimka in la daawan doono waana filim xiiso badan markaa Atle Kumar oo markaa director laga dambeeyay marka la fiiriyo fanka Tamil filimada uu sameeyay noqdaan filim blockbuster ana ku xasuusana filimada Theory marka la sameeyay sanadii 2016 kaas oo noqday blockbuster waxa ugu xigay filimkiisa Mersal oo markaa Thalapathy Vijay ku matalay 3 door oo kala duwan kaasna wuxuu noqday blockbuster hadda 2019 ayuu dib u yimid Thalapathy Vijay sidoo kale Atle Kumar waxana filimka Mersal ayaa markaa aan ilaahay filimka Big la isku yimaadeen oo laba door kala duwan filimka Thalapathy Vijay ku matalay kaasna wuxuu noqday filim blockbuster lacaga waliya filimkan soo xareeyay haddana filimka xisaab badan Jawan ayaa Atle Kumar markaa uu ku dhawaaqay
oo la daawan doono 2 Juun 2023. akhbaarta ugu weyn waxay tahay filimkan marka hadalaynta marka jirtay marka la wadaago waxay tahay Allu Arjun filimkan uu ku yeelan doono muuqaal martiya waa sida marka shabakadaha kala duwan marka daawacayaan asxaabta filimkan hadalaynta marka jira filimka Allu Arjun hadii marka dham noqoto waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaaladan xiga halka kala socda hadii marka hadalaynta marka jirtana ay marka sax noqoto iyo hadii marka hadalaynta filimka loo sameeyo jawaan marka ay tahay buunbuunin marka la buunbuuninaya filimka jawaan si markaas ay marka hadalaynta filimka jawaan marka irka u gasho ilaa marka laga gaaray 2 Juun filimkan marka soo bixi doono taas ay karata filimkan marka la soo qaato Allu Arjun filimkan ku yeelan doono muuqaal martiya waxa ka soo kordhana filimkan hadii marka Allu Arjun filimkan qayb ka noqon doono waxa kaga boqon doonta barnaamijyadeena kale akhbaaraadka kala jira soo qaadan kana saaxiibada qiimaha badan waxa kamid ah filimka marka lagu magacaabo KCK by KCK Chan filimkan waa filim si weyn loo sugo marka hogaamiye ka starka caanka Salman Khan halka Buujahid filimkan kuma talisaa tirashada kuwaad sidoo kale dooro kala duwan filimka ka soo muuqan doona wax kamid ah Jagabatuba uu filimkan kuma talada awood badan sidoo kale filimka xiddigta caanka Shahnaaz Gill marka inta badan filimada ka soo muuqata musalsalada xiddigtana filimkan waxa kamid ah doorarka muhiimka filimka ka soo muuqan doona sidoo kale filimka tashta gubatayna filimkan qayb ayuu ka yahay sidoo kale filimka hees kala kacsanaya marka shalay marka laga soo bandhigay oo marka ku xarakeeyay Salman Khan sidoo kale Buujahid waxa lagu magac daray lagda heestan marka waxa ku luuqeeyay xidiga marka kala Kamal Khan sidoo kale Black Majal filimkan waa filim aad u xiiso badan waxaana daawan doona 2023 heestan marka filimkan hadalay weyn ayuu dhirisay maadaama filimkan muuqaalka xilliga duubay ku dhawaad 20 milyan views filimkan marka heestan ay mariso sidoo kale hadii aan ku noqdo filimka heesaa dadka marka ku luuqeeyay waa dad kala Kamal Khan sidoo kale Black Majal ayaa filimkan heesta ku luuqeeyay halka muusikada marka uu diyaariyay ninka lagu magacaabo Himesh Rajme oo inta badan looga haray heesaha marka classic marka fanka Hindi marka Bollywoodka inuu marka agaasimo ama music composer marka laga dambeeyo isku dubaridka marka muusikada ayaa ninka Himesh Rajme ayaa filimkan dhanka muusikada agaasimay halka marka ku luuqeeyay Kamal Khan sidoo kale Black Majal sidoo kale filimka Salman Khan sidoo kale Buujahid filimkan waxa ka soo muuqda doorka shaashada heestan aad ayaa looga helay sidoo kale heestan waxa loo sameeyay qaybta marka filimada 90-aadka loo sameeyay jiray ama qarniga 20aad marka filimka heesaha sida loo sameeyay jiray ayaa filimkan loo sameeyay taasoo ka dhigtay filimka soo jeedin weyn marka uu soo jeeday dadka marka indhaha bulshada heeskan waxa la soo bandhigay xilli marka lagu jiro Valentine Week oo marka 10 February ilaa 15 February marka ku taasoo marka tiimka filimka ay ka faa'iideysanayeen in marka filimkan ka faa'iideystaan firaaqa marka halka ka jiray sidoo kale xiisaha marka loo qabo sidoo kale filimka Salman Khan wuxuu ku soo daray marka heeska xilli marka la soo gabagabeynay barnaamijkiisa caanka Big Boss 16 oo xalay marka galinka dambe filimka ama barnaamijka la soo gabagabay ayuu marka heeskan xitaa ku soo dhaxsiiday sidoo kale barnaamijka Big Boss 16 wax ka soo muuqday dad marka aad u loo xiiseeyo oo marka kamid yihiin Sunny Deol iyo sidoo kale xiddigta lagu magacaabo Misha Patel oo filimka marka Gartaa Tour marka isla soo wada oo la daawan doono 11 Agosto sidoo kale barnaamijka Big Boss 16 wuxuu kamid yahay barnaamijyada marka lagu jecel yahay marka la fiiriyo dhanka Hindiya oo marka ka baxay TV-yada heeska laga soo bandhigay KCK by KCK Chan filimkan aad ayaa loo amaanay sidoo kale hadalayntiisana filimkan cirka ay sii gashay maadaama heesa kala kacsan filimka ku jiro hal ugu horeysa filimka heeska lagu magacaabo lagda oo shalay marka la soo bandhigay ku dhawaad 20 milyan views filimkan ka sameeyay barta YouTube waxa la soo galiyay barta loo yaqaan markaasi Music Company oo shirkadda ugu weyn marka la fiiriyo dhanka muusikada waxna ku soo xigtay shirkadda lagu magacaabo T-Series halka filimkan uu sameeyay ku dhawaad 800 kun oo like ayuu filimkaas sameeyay taasoo ka dhigtay filimkaas soo dhaweynaya in caadi marka la kulantay heesta marka laga soo bandhigay filimkan waxa daawan doona 21 Abriil 2023 meestarka caanka Salman Khan waxa uu diyaarsay filimkiisa lagu magacaabo Tiger Tiro marka la daawan doono bisha November ama bilaha October ama feestada Diwali way filimka lagu magacaabo Tiger Tiro marka ka faa'iideysan doona akhbaarta la wadaago waxa heesta kala kacsan marka la lecture inay marka baraha bulshada haysatay filimkan waxa ka soo kordhan waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaaladan xiga ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan barnaamijkan waxa ku soo afmeynaa filimka lagu magacaabo Bathar marka hogaamiye ka yahay superstar caanka Shah Rukh Khan iyo sidoo kale dabiga badgoona filimka tirasho ku kuma taliso filimka xiisaha badan John Abraham filimkan kuma talay la awood badan iskaman doonaan ay xafaltami doonaan Shah Rukh Khan filimkan waxa soo baxay 20 January ayaa tiyaatarada inta ay marka la saaray dhankaas Hindiya sidoo kale daafaca caalamka filimka xiisaha badan wali hadda ilaa tiyaatarada wax saarayaan ku dhawaad wax saaraya 19 ashay filimka tiyaatarada saarayaan isagoo filimka ganacsiga marka uu gaaray ku dhawaad 946 karoor wuxuu noqday filimkii ugu horeeyay marka laga leeyahay fanka Bollywoodka ina filimku ugu horeeyay 946 karoor marka uu gaaray muddo marka 19 asha sidoo kale iskoor marka uu yaalay filmaan kale waaweyn marka kamid dangal iyo sidoo kale KGF marka lagu daawado luqadaha marka Hindi ayuu filimka ka talaabay sidoo kale waxa uu dhimay marka iskoorku ku soo qaban lahaa filimka lagu magacaabo Bahubali 2
sidoo kale filimkan dhankaas Hindi wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaad 588 karoor marka la fiiriyo gross marketka. sidoo kale marka la fiiriyo net profitka filimkan wuxuu soo xareeyay ku dhawaad 489 karoor halka filimka suuqyada caalamka marka ka soo xareeyay ku dhawaad 358 karoor oo dhigata marka la fiiriyo USA marka 43 milyan ilaa 650 kun oo doolarka Mareykanka. filimka wuxuu ka saameeyay suuqyada caalamka. filimka haduu markaas si sanaad ku dhawaad 7 wuxuu gaari doonaa 50 milyan oo doolarka Mareykanka wuxuu noqonayaa filimkii ugu horeeyay markaas suuqyada caalamka ka soo xareeyay 50 milyan doolarka Mareykanka waana iskoor markii ugu horeeyay markaa uu sameeyay taariikhda markaa fanka Hindiya. iskoorkaasna waxa sameeyay megastarka caanka Shah Rukh Khan iyo filimkiisa markaa Pathaan. xitaa toddobaadkii saddexaad filimka wax waali ay sameeyay maadaama filimkan ilaa 100 karoor filimka la sameeyay markaa soo xareeyay toddobaadkiisa markaa saddexaad oo markaa laga soo bilaabo 4 ilaa markaa Axad oo markaa weekendiga marka la fiiriyo taasoo ka dhiganta ilaa markii filimka la gaaray Shahzada ilaa markaa selfie filimkan inuu markaa ganacsan markaa ka tilaabi doono ilaa 1,000 karoor. inkastoo markaa Jimcaha soo bixi doona filimka Shahzada oo markaa tiyaatar markaa ku filan ilaa markaa shaac laga qaaday 300 karoor ilaa 400 karoor markaa filimka tiyaatarada markaa Pathaan markaa baaqi ku soo haan karo taasoo ka dhiganta filimkan markaa ganacsan markaa ka tilaabi doono ilaa 1,000 karoor. 946 karoor ee filimka hadda maraya oo markaa doolaha marka la fiiriyo markaa lacagta wuxuu dhigmataa ku dhawaad 115 milyan ilaa 400 kun oo doolarka Mareykanka markaa u dhigantaa. asxaabta filimka Pathaan wuxuu sameeyay wax waaliye wuxuu noqonayaa filimkii ugu horeeyay markaa fayska leeyahay fanka Bollywood oo markaa darajadaas gaara. asxaabta waxay ka soo kordhana filimka xisaab badan waxaan ku soo goobin doonaa muuqaaladan kale. fadlan haddii aad ka heshaan muuqaalka like noo saara waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.